waxaan arki jirnay ciidanka booliska oo jiingad la jabinaya ag taagan meel dad ku dhinta maxay boolisku u tagi laayihiin waxay u tagi laayihiin cadaalad darro waa ku dilay waana kugu dan lahay way waxaad u qaadateen yani waa la dilay waana laga tagay saasa lagu duugi doonaa hal la arko dadkii la doonayay inay dadka shacabka ilaaliyaan oo lagu jiifay oo amniga sugayay oo nin lagu seexdo hasiixanaha ayaa dhibtan loo tirinay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha Shiiqaal oo uu ka dhashay marxuum Bashiir Cabdullaahi Macalin oo dhawaan la sheegay in ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliya uu hogaaminayo taliyaha saldhigga booliska ceelasha biyaha ay ku dileen deegaankaasi kadibna gaari cabdibila ah lagu jiiday wali nimeedkiisa uu firinjeer ku jiro ayaa sheegay in wali dawladda Soomaaliya aysan ehelka kala hadlin dhibka lagu geystay shaatiga dawladda odayaasha iyo nabadoonnada kulmay ayaa sheegay in haddii muddo 24 saac aan looga soo jawaabin cabashada ay ka gudbiyeen dhibka gaaray ay banaanbax ku qaban doonaan xarunta iskool buluusiya ee booliska Soomaaliyeed iyagoo wata meedka marxuumka ee hadda firinjeerka ku jira muddo ku dhow 10 cisho madaxda dawladda hay'adaha garsoorka iyo mas'uuliyiinta ay ugu baaqeen inay hoos u eegaan cabashadooda loogana baahan yahay dawladda inaysan iska indhatirin dhibka lagu eedeeyay taliyaha saldhigga booliska ceelasha biyaha waa kuwan qaar ka mid ah odayaashii iyo nabadoonnadii kulanka ka hadlay wax faxuush ah oo dhacay oo maalin 8 maalmood laga joogo dhacay ka dhacay ceelasha biyaha beer ku taal ninkii lahaay dhul ku yaala asagoo waardiyeysanaya waxaa la yidhi qayladhaan ay yeertay war xaggay ka yeertay masaajidkana geeya masaajidkii bay ka yeertay cadaaladda waxay ka bilaabataa booliska iyo saldhigyada booliskiya wuxuu nagu sameeyey xeer gudub cadaalad xumo waxaan loo dul qaadan karin intaa markuu nagu sameeyey waan ka hadalnay dawladdaan u sheegnay maydkii waa yaallaa haddaan dawladda u sheegnay iyo hay-adihii amniga wax laga qabtay iyo wax u yimid iyo xaggaa maydku yaalla waxay yidhaha maanaan arag waa ku dilay waana kugu dan lahay waay waxaa weeye marka ummaddu markay saasoo kale qabato waxaa yimaada nin mayd u dil haddii alla kuri xumaan ku gud waxyaabo noocaasaa yimaada war wixii dadka dib ha ugu celinina war soo fiirsha meeshii wax ka dhaceen war maydku meeshuu yaalla arka war haddii alla kuu roon yahay hanalo u yimaado warkan aan sheegayno shalana sheegnay doraanna sheegnay maantana aan sheegayno yaa ha fududaysanina dadku bini aadan waaye gacan wax goydo uu leeyahay xumaan buu leeyahay yacni maarta wax kastuu leeyahay waxaad u qaadateen yacni waa la dilay waana laga tegey saasaa lagu duugi doonaa ha la arko hay-adaha amnigu ha arkeen dawladdu ha aragto waxaan leenahay ha la arko arrintaas dib ha loogu soo noqdo waxaan ku darayaa haddaan cadaalad darrada waxa ka dhalan jiray aan sheego caddeeyo bila ka hor waxaa ka dhacay gobolka Galguduud in niman dablay ah intay duuleen ay hooyo iyo gabdhaheeda soo dileen dabeedna cadaalad darro lagu sameeyey xukunkaas markii reerkii maamadu ka dhimatay ee gabdhuhu ay yiraahdeen cadaalad darraano loo ku sameeyey loo cadaalad fali waaye inay dableydii dhinaca kale intay qaataan ayaguna haween u soo dilaan marka mayd loogu yimid gurigiisii nin gurigiisii hantidiisii loogu yimid ee niman boolisa oo libisan oo baabuurkii calaamadda booliska ay ku buufsantaa niman wata intay yimaadeen ay dileen misana jiideen laga garaabi waayey aynaan arag muxuu ahay booliska gobolka Banaadir oo aanan arag booliskii guud ee Soomaaliya oo arrintaas cid daba joogta la waayey waxaa ka dhalan doona cadaalad darrada noocaasa in shacabku ay sharciga gacantooda ku qaataan oo habar loogu aaro waxa soo socda waxaan codsanaynaa fali maynee mana ku degdegi doonee in dawladdu ayna maqasho oo ay ka hor tagto waxaan maqlaya maalmahan dad badan oo dawladda waxaan ka codsanaynaa leh waxaan isleeyahay codsigaasi waaba shaqayn waaye horteenuu shaqayn waaye laakiin annagu waa tilmaamaynaa codsi laydin codsado waa shaqayn waayey horaan u maqalnay laakiin waydin tilmaamaynaa dadku yay sharciga gacantooda ku qaadan yaan qof loo dilin yaan qof loo jiidin
yaan jid xun la jidayn qof kasta oo jid xun jideeyana jasada xumaanta ka imaanaysa cadaabta yowmalqiyaamana waxbuu ku leeyahay marka waxaan rabnaa in arrintaas si degdega loogu soo baxo ayaan codsanaynaa waxaan arki jirnay ciidanka booliska oo jiingad la jebinaya ag taagan meel dad ku dhinta maxay boolisku u tegi la'yihiin waxay u tegi la'yihiin cadaalad darro saldhigga booliska degmada ceelasha dadka jooga ee hawshaas fuliyey ayaan u sheegaynaa in ay iyagu mas-uul ka yihiin mas-uuliyaddaasna loo raacdo dilkaas foosha xun waxaa geystay rag ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed oo wata gaari cabdibila ah oo booliska Soomaaliyeed leeyihiin markii marxuumka ay gardarro iyo xoog sheegad ay ku dileen meydkiisii ayay ku jiideen dhulka ilaa maqaarkii iyo hilibkiisii ay kala siibteen dilkaas raggii geystay dawladda iyo hay'adda booliska Soomaaliyeed gacan ku dhiiglihii ilaa iyo maantay lama soo qaban madaxda booliska Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir waa wargelinay waana og yihiin wax tallaabo ahna ilaa iyo hadda ma aysan qaadin sharciga iyo dawladnimadu markii ay ka gaabiyaan waajibaadkooda soo ma aha in loo fasaxay shacabka Soomaaliyeed qof walba sida uu rabo inuu u dhaqmo haddaba dawladda waxaan u sheegaynaa annagoo ah shacabkii inaan u soo baxno doorasho si cadaalad iyo horumar loo gaaro oo waddanku u gaaro dawladda hadalkeeda shacbigu diyaar buu yahay inuu dhagaysto oo ay fuliyaan laakiin dawladdana waxaa laga rabaa inay iyaguna fuliyaan ku dhaqanka sharciga iyo kala dambaynta haddaan la helin intaas shacbigu ma bannaan bixi karaan 25 doorashada soo socota kulligeen waxaan haysanaa kaararkii baan haysanaa diyaar baan u nahay dawladda iyo dadaalkeeda inaan ka qayb qaadano laakiin laba isma geli karto dawladda waxaan ku wargelinaynaa madaxweynaha ra'iisul wasaaraha labada gole baarlamaanka shacabka Soomaaliyeed waxaan ku wargelinaynaa dadka sidoodaba cadaalad baa deeqda haddii cadaaladdu ay faraha ka baxdo waxa weeye dawladnimada laftigeeda baa qilqiil galaysa waxaan leenahay marka annagoo ah beesha Sheekh Khaalid dilkaas laba jeer dilka ah oo ku dhacay beesha waxaan dawladda ka codsanaynaa si degdeg ah falkaas guracan inay wax uga qabtaan si shacbiguna dawladdiisa ugu kalsoonaado dawladduna shacbigeeda ay u maamusho haddii taas la waayo waa ku celcelinaynaa waxa weeye waxa nala ka rabo iyo doorasho u soo baxa adeer soo bixi karno markay meyd baa noo yaal jirkiisii iyo hilibkiisina ay kala go'een 8 maalmoodna ku jira frinjeer dawladduna ay ka warqabto wax tilaabaana aysan qaadin maalin dhexdeeda waxaa aad looga cabanaya Soomaalida Trump baan Soomaali caayay baa leeyahay wuxuu caayana waxa u horeysay biliisku ka mid ah hadda iyaga isku cadaynayo biliisku inay wax qabad xumadooda wixii Trump sheegay inay meesha ka shaqeynayso waa qashin biliis ma jiro wixii uu Trump yiri meesha ka muuqata warshada isku dhaama hadda biliiski tiin ilaamiya cadaaladda idinka ah hawshaas biliiska anu maanta la hadlayo cabashada sababta ay qaybna waa fulis qaybna waa ka aamusta inay wada qabaan baa meesha ka cadaanaysa marka waxaan leenahay meydka talaajinta ku jira intaan xumaan kale oo balaayo lagu dhaqaaysan meesha imaan hal iscansho wabillahi tawfiiq cidda dhibaatadaas laga tirsanayaana waa ciidanka booliska amniga dalka weyn dadkii la doonayay inay dadka shacabka ilaaliyaan oo lagu jiifay oo amniga sugahayay oo nin lagu seexdo hasiixanaha ayaa dhibtan loo tirinaya waxa loo tirinayaa degmada waxa loo tirinayaa booliska waxa loo tirinayaa dadka ilaalin lahaa cabashadeedana waa jeedin meydkana talaajad buu ku jiraa inaana doogayna waa sheeg ilaa dawladdu ay sheegto dhacdadaani siday u dhacday oo ay amar bixiso tirad hal duu ma doogeen maxaa looga jawaabi waa looge waxaana la ku dilay diriiska dawladda gaadiidka dawladda waxa loogu soo bixi waado oo dawladdu ma dhagalaa iyada dalka dawladdu ah haddaan dawladdi jirin hadii dawladdi ma jirto haddii dawladdi jirtana waa mid dheer anagu wax qarsan in dawladdi jirtee wax laga qabto waa cabanay waa sheegnay maalin walba inaan iska calacalana ma aha waxaan leenahay madax meel iska sareeyo la salaaxa ma jiro madaxweyne ay leedahay ra'iisul wasaare ay leedahay wasaaradda amni bay leedahay taliyaal ciidan bay leedahay
warkaas waa sheegnay mar dhaxana waa sheegnay haddana waa sheegayna mana joojinayno maydkana ma duugayno warbixintaana tani waa tii labaad ilaa tan tobnaad baan wadaynaa ma joojinayno ciddii aan sheegi karo wixii aan sheegi karo wixii nagu dhacay maalin kasta aan sheegaynaa waa wadaynaa yani waxaa loogu tegey dhulkiisoo ku yaalla jabadgeelle ciidanka booliska ayaa ku dilay deedna intay ku xireen baabuur ayay jirkiisa iyo maaragtay jirdil iyo waxay ku sameeyeen si fawaaxisho fool xun annagu taa iyada ah hadda ka jawaabi mayno waxaan doonaynaa oon hadda u taagannahay qorraxda waxaan doonaynaa in si degdeg ah dawladdu inay ugu soo baxdo oo maydkaa 8 maalmood fulinjeetarka ku jira inaad nagala qayb gashaan dawladdu shacabkay u baahanta shacabkuna dawladdu u baahan yihiin haddii dawladdu ay wax ka qaban weydo arrinta noocaasa shacabkuna dawlad hadda yani u diyaar garoobo meeshaba ma taallo waxaan doonaynaa si degdega bahgooyada iyo dhibka nagu dhacay in lala qaybsado waa haddii meesha cadaaladi jirta weeye haddaysan cadaaladi jirin nin walba awrkiisuu raaci doonaa annagu kolley haddaan ka weyno hadda haddaan weyno waa helaynaa xaqeenna kolleyba waa helaynaa xag allaan ka helaynaa yacni waxay qusaysaa madaxweynahay qusaysaa ra-iisul wasaarkay qusaysaa in alla inta yacni maaragtay mas-uulka ah ee dalka maamulaysa ayay arrintan u qusaysaa nin gooni ay u qusaysaa ma jiro waxaan doonaynaa si degdega oo maaragtay aan dadnimo xumo lahayn oon dawladnimo xumo lahayn in looga jawaabo arrintaa taa iyada ah haddii aan la helin haddee dawladii meesha annagu aan markaas aan ku fayloon u codaynaba noomaba taalla meesha hadda si degdega waa in looga jawaaba markii dhul la jabinayo madaxda gobolka booliska iyo meel walba waa taagan yihiin dhacdadaanse waxaa moodaa dhacdo la siyaasadeeyey waxaa moodaa dhacdo dana adduunya ay soo galeen meeshii waxaan dawladda ka codsanaynaa dalku isagoo doorasho la yidhi doorashu u socdaa inaan shacabkii dadka baabi'inaya wax magaradka ah iyo tuugada ku jirta meel walba ku jirta oo baabi'inaysa shacabka baabi'inaysa inaan hawlihii aan loo baabi'in ugu dambeyn kulanka ayaa laga soo saaray war-saxaafadeed baaq degdeg ah loogu diray dowladda Soomaaliya weerarkaas waxa ay sababtay geerida marxuun Bashiir Cabdullaahi Macalin marxuunkaasi oo markii la dilay kadib dhulka lagu jiiday ilaa maqaarka uu ka fiiqmay taasoo tacaddi ka dhan ah karaamada marxuun iyo xuquuqda aadanaha intaba weerarku wuxuu kaloo sababay dhaawac qof kale oo isna ka mid ahaa shaqaalaha ku sugnaa beerta waxaa sidoo kale jira khasaare maaliyadeed oo fara badan haddaba waxaan si cad halkan ugu caddaynaynaa dowladda federaalka ummadda Soomaaliyeed in dhacdadaas foosha xun ee dhacday 7 maalmood ka hor aysan jirin in loo soo xiray ilaa hadda in taliyaha saldhigga ciidanka booliska deegaanka ceelasha biyaha Maxamed Xaashi Cagey ee falkaasi geystay uu wali ka howlgalayo saldhigga ceelasha biyaha aysan jirin cid talaabo sharci ah ka qaaday taas oo ceeb iyo fool xumo ku ah dawladnimada sidoo kalena muujinaysa cadaalad darrada baahday ee ka jirta dalka iyo sida aan sharciga loogu sinayn in uusan jirin mas'uul dawladeed oo ilaa hadda dhacdadaas foosha xun ka garaabay ama la soo xiriiray eelada dhibanaha iyadoo meydkii marxuunka uu wali banaanka yaallo 7 maalmood kadib tani waxa ay muujinaysaa in xadgudub cad oo ka dhan ah sharciga xuquuqda aadanaha iyo karaamada muwaadinka Soomaaliyeed waxaan halkan ka codsanaynaa hay'adda amniga cadaaladda iyo garsoorka dowladda federaalka Soomaaliya in si degdeg ah cadaaladda loo horkeeno dhammaan eedayshaashii ku lug lahaa dhacdadaas foosha xun si gaar ah taliyaha saldhigga ciidanka booliska uu fuliyay falka in baaritaan madax bannaan oo hufan lagu sameeyo jirka meydka marxuun Bashiir Cabdullaahi si loo gaaro xaqiiqda dhabta ah marxuunkuna cadaalad u helo waxaan cod dheer ku celinaynaa in meydka marxuunka aan la duugi doonin ilaa uu cadaalad helo ku dilayna cadaaladda la horkeeno waxaan ka digaynaa in sharciga loo sinaan waayo sida haddaba muuqata ee ah lama canaantaan ayaa caanihii daadshay Soomaali waa istaqaanaa ummadana yaan la isku fasixin waxaan halkan ka caddaynaynaa in haddii 24 saac gudahood aan Maxamed Xaashi Cagey iyo kuwii falkaasi ku lug lahaa sharciga la horkeenin aan ku dhawaaqi doono banaanbaxyo waaweyn oo nabadeed
oo cadaalad loogu raadinayo marxuum bashiir cabdulaahi macalin banaanbaxaasi oo ka dhici doona barxadda iskuul bulisiya maadaama dhibaatadaasi foosha xun lagu geystay baa layidhi magaca booliiska soomaaliyeed iyadoo weli meydka halkaasi la keeni doono haddii sidaasi nala ku kalifo zakariya axmed muuse TV ga Shabeelle Muqdisho.